waxaan runtii rabaa inaan bogaadiyo oo ka mahad celiyo ka soo qaybgalka laga soo qaybgalay shirkan ku saabsan qaxootiga Soomaaliya iyo gaar ahaan kuwa sida qasabka oo aan loo meeldayn loo barakaciyo oo shirkan uu ku saabsan yahay oo regionka iyo meelo badan ka socda wuxuuna shirkan muhiim u yahay in xal loo helo annagoo wada jirna oo culimo odayaal hay'adihii qaabilsanaa dawladda igad oo regionka hay'adda u qaabilsana dhammaanteen iyo UNHCR kii ugu weynaa oo qaxootiga iyo howlahaas khuseeyay inaan xal u wada helno arrintaas iyo bulshooyin badan oo lagu soo barakacay oo korkooda la degan yahay oo ayaguna runtii resource-kii yaraayo ay haysteen dad lagu qasbay inay soo barakacaan ama dad soo barakacay oo duruufo kale soo barakaciyeen intuba ay la nool yihiin wasaaraddu marka waxay runtii arrimahaas ka dejisay siyaasaad waxaana soo socda shuruuc ku saabsan qaxootiga iyo barakacayaasha waxaana rabnaa in annagoo wada jirna arrintaasi xalkeeda aan u wada istaagno wasaaradda howlaha muhiimka ay ka mid yihiin arrimaha barnaamijka xasilinta ayaan maalin dhaweeto daha furnay oo xukuumaddu ay daha furtay oo qayb ka mid ah lagu xasilinayo gaar ahaan deegaamada hadda nimankan khawaarijta laga xoreynayo oo dad badan dagaaladaasi ay ku barakacayaan waxaan hadda qorshe la dejiyay dadkaas barakacoodu dagaalada saameynaya inuusan dheeraan oo isla markaas meesha la qabtaba in noloshii iyo adeegyadii dowladda looga baahnaa in meesha la geeyo waxaa kaloo ku mashquulsannahay oo wasaaraddu ay wadaa howlihii national ID-ga oo ayaguna muhiim u ah in la helo xog dhammaystiran oo muwaadiniinta Soomaaliyeed mar walbaba tiro ayaa naloo sheegaa qaxootiga hadda waxaa ku qoran warqadaheenna 2,900,000 iyo intaa 3 milyan dad ku dhow ayaa nugu jira marka waxaan rabnaa oo kaarkan aqoonsiga oo sanada soo socota insha Allah oo la hirgelin doono oo qof kastoo muwaadin ay tahay inuu qaato wuxuu suurtagelin doonaa in la helo xogta rasmiga ah dadka loo diiwaan geliyo barakac dadka loo diiwaan geliyo qaxooti iyo muwaadiniinta kale ayaguna sidoo kale wasaaraddu waxa ay dhawaan golaha xukuumadda horgeyn doontaa oo wiigan hadda soo socda ama ku xigaba shuruucda indis sharciyeedka qaxootiga oo runtii horey loo geeyay baarlamaanka laakiin baarlamaankii hore uusan dhammaystirmin processkii loo baahnaa hadda dib baan haddana rabnaa inaan ugu celinno waxaa runtii kaloo diyaar ah oo xukuumadda hor yaalla oo aan gudbinay sharcigii barakaca oo soo maray wada tashigii iyo howlihii loo baahnaa sharcigaas gudihiisa dadkaasi waxay ku helayaan tirada badan oo 3 milyan ku dhow xuquuqaad tiro badan ayay ku helayaan oo Soomaalida gudaheeda iyo dawladda ay la nool yihiin dawladooda iyo dawlad goboleedyada iyo deegaamada ay ku nool yihiinba inay dad muwaadiniina oo dalkaas deegaankaas degan inay yihiin oo haddaba aad aragteen in dad barakacayaal ahaa shalay ay maanta baarlamaanada gobolada ku jiraan oo galmudug ay tusaale u tahay si la mid ah Puntland inay doorashooyinkii u dambeeyay kale golayaashii deegaanka ay ka qayb galeen qardha iyo sida xogta ku haysiin marka integration dadkii way ku milmeen bulshadii meeshaas ay degan waana mid aan rabno qof kastoo Soomaaliya meesha uu tago oo siyaasadana sharcigana uu ogolaanayo inuu xuquuqdiisii muwaadinimo uu practice gareeyo oo ku helo meel alaaliya meeshii noloshu ay la tagto sidoo kale in la helo siyaasad dadka dib ayagoo voluntary ah oo maaragtay dib loogu celinayo deegaamadoodii ay deganaayeen horey u deganaayeen oo duruufaha ay uga soo carareen waxaan rabnaa runtii inaan halkan ka xusno in dadka hadda forced displacement-ga halkan ku qoran in hadda kooxda argagixisada ah ay dadkii qasbayso inay deegaamadoodii ka barakacaan oo waxayna uga barakacayaan inay askareeyaan wiilashooda yararka ah oo aniga ayaaba ku arkay hobyo dad xardheere ka soo qaxay oo la yiri 12 jir wiilashii 12 jirka ah ayaa la askareynayaa sidaas awgeed odaygii ama waalidkii ama qoyskii leh 3 ciyaal hal xaba ha keenaan kuwii 4 leh 2 ay keenayaan dad badan baa markaa waxay la soo qaxeen oo deegaamadoodii ka soo qaxay sidoo kale waxaan aragnay kuwo soo qaxay oo ku soo qaxay gabdho yar yar oo 10 jiro iyo 12 jiro iyo 13 jiro waxay rabaan baan da' yar
oo ayagana qasab looga wadanayo reerkoodii oo leeyahay aabbahabaa murtada ama aabbahabaa saas. waxay dadkii kaloo qaarkood ku barakaceen canshuuraha iyo baadda laga qaadayo ay xamili waayeen oo dallagoodii beeraha iyo xoolahoodii la dul saarayo wax aysan dadku xamili karin. taasna waxay keentay in ay dadkii ka qaxaan. haddana waxayba bilaabeen xataa gargaarka oo hadda maareynta musiibooyinka runtii aan rajeynaya inay nala fadhiyaan in la gaarsiin waayo deegaankii deeqihii lagu talagalay oo ay dhacayaan baabuurtii qaadaysa oo meelahooda bakhaarada ay ku shubanayaan. taasna waxay tahay dadkii gaajaha u dhintaan, dadku markaas waxay raasanayaan meeshii ay nolol ka heli karaan oo u barakacayaan. marka duruufo tiro badan ayaa hadda sababaya dadkeenu inay runtii barakacaan. waxaan runtii rabaa inaan halkaan uga mahad celiyo hay-ad ayaa qaabilsan oo hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha la yidhaahdo oo Soomaaliya 2000 iyo maaragtay 16 miya goorta la aasaasay oo shaqo fiican iyo ay ugu muhiimsan tahay in xogta rasmiga ah ee dadka barakacyaasha kuwa dalka in la helo, la diiwaan geliyo, loo maaragtay qareemo Soomaalida gudaheeda dhul loo helo. oo mar walba waxaan aragnaa hay-addii iyo Aamine iyo tiimkeeda oo dhulal u raadinaya dad la dejinayo, dib loo dejinayo deegaamadii. marka runtii hay-addaasna shaqo fiican bay qabatay. waxaa runtii hadda aasaasmo dib u soo noolaaday hay-adda maareynta musiibooyinka oo labaduba lafdhabar u ah in la helo deganaansho u adkaysiga aafooyinka iyo sidii xal waara loogu heli lahaa muwaadiniintaas barakacyaasha iyo qaxootiga kale ee maangeliya doonka. waxaan rabaa inaan kusoo gunaanado shirkan runtii ujeedkiisu wuxuu yahay inaan annagoo dhan talo ku wada biirino, isla markaasna 3 milyan maahan tiro yar. waa dadka marka la yiraahdo Soomaaliya tiradeeda hadda lama haye percentage 15% ayay ku dhowdahay oo dad ah ayaa maantay degan dhul aan dhulkoodii ahayn, guryo aan guryahoodii ahayn, ku nool duruuf aan duruuftoodii ahayn. dadkaas runtii caruur badan baa ku jira oo waxbarashadii asaasiga ahayd oo la rabay in qof kastoo muwaadini inuu xaq u helo aan u heleen. haween badan baan maaragtay ku dhala duruuf adag oo qallafsan, ilmo badan baa ku dhinta oo ku dhibtooda caafimaad darro tiro badan baa ka jirta xerooyinka iyo meelahay ku nool yihiin. sidaasaa wasaaraddii caafimaadka iyo wasaaraddii isbeddelka cimilada iyo wasaaraddii waxbarashada iyo gobolkii Banaadir iyo dowlad goboleedyada dadkii wakiilada ah oo ka socday dhammaantood halkan u wada joogaan iyo bulshadii kale ee Soomaaliyeed oo aan rabnaa iyaguna qayb inay ka noqdaan. culimada waxaa aragtaan xerooyinka marmarka qaarkood waxaa la yiraahdaa waxbaa ka dhaca, xadgudubyaa ka dhaca oo bini aadamnimo waxaa ka dhaca gabdhaha yararka iyo dadka haweenka oo meeshaas joogo askar waxbaa u galaya. adiga mar walbaba qayladhaan baa ka yeeraysa. marka waa mujtamac aamusan oo u baahan in loo qareemo, mujtamac aamusan oo u baahan in la gargaaro, mujtamac aamusan oo xuquuqdiisii iyo meeshii uu casiiska ku ahaa oo ku karaameysnaa inta ka soo tagay meel kale lagu qasbay inuu joogo. shirka marka arrintaasuu la xiriiraa. waxaan kusoo rabaa in 3 maalmood oo shirkan uu soconayo ay qadaayaad tiro badan iyo arrimo badan baa lagu soo bandhigi doonaa oo jadwalka hortiina yaal ay ku qoran tahay. waxaana rabnaa insha allahu gabagabada inaan isla helno xal iyo u qareemid dadka Soomaaliyeed oo duruuftaas ku sugan. waxaana runtii rabaa inaan kusoo gunaanado. aad iyo aad baa u mahadsantihiin. shirkuna waan u furan yahay.